وميدو هذا الهيئي قدي لقى مقعابي دولة دا مقدشو ومقعابي مدحوينها الصومالية محمد عبد الله قدي دا مركز مقعابي وحاورت كورية وتشيدو لو مقعابي إيه هوش الله دراي هوش الله دراي قدي دا واللبا قضب لبدا قضب بدنا الصومال لا بخصيه مرة داري حسين الصومال لا الصومال لا جوا كان قابسنا وحي قدوه دا فرقريمين قضب كوباد waxa uu diray gudida inay dhameeyaan tabashooyinka walaalaha Soomaaliland waxay la tahay tabashada cid ka tabanaysa ee uu garanayo walaalaha la jooga waa inta isaga la joogta ee u shaqeysa marka haday ku haysto ka tabanayaan inta isaga u shaqeysa haday wax ka tabanayaan waa u taala balse Soomaaliland madaxweyne Maxamed Cabdullaahi intii uu xilka yimid waxay ka aragtay oo kala kulantay cadaawad aan hore loo arag 18 sano ee ka dib bixii Soomaaliland iyo Soomaaliya 28 ka madax inta sano intii madaxweyne ee joogtay cadaawad aan laga arag oo dhinac walba ah ayuu Maxamed Cabdullaahi bilaabay oo uu qaaday oo joogto ah har iyo habeen haday tahay mid faragelineed mid ciidan mid dhaqaale mid propaganda dhinac walba oo tulaanahay waana wax ugu wada og yahay oo imka idin tirirmaayo caalamka oo dhan baa tii shalay ariga ugu dambeysay ay waliba ceebtooda ku faalan anaga sii deynay markii caalamku ka garowsan waayay ama dadkii xajka ahaa xoolihii ay ka iibsadeen berbere lacagtooda qadaba ay hor joogsadeen in caalamkii la yaabay ayaa ay ku dacwadeen shirkii BBC ka lahayd anaga wax soo deynay arrinta hadda si dhaweyd ka warrabo ariga banka islaamka dawladaha wax ka iibsado ariga ka iibsado waxa ugu weyn Soomaalida inta badanna wuxuu ka dhoofaa berbera dhawaashaha dekada oo ku haboon iyo dekada kala qaar laakiin waa u baday saacada marka dhowr bilood ka hor ayuu banka islaamigu meelaha ariga ka iibsanayo dhan ariga ka iibsado waliba lacagtii horumarinta ay uu siiyay ariga la iibiyo meel walba marka ariga la raray waxa lahaa banka islaamka ayaa lahaa ganacsatada Soomaaliland heshiis bay ku wada jireen in inta qadibaada ay hayaan xoolaha la rarana ay xoolo caafimaad qabo ku yahay dadka banki iyo waxay sheegtay nimankan ku jooga dawladda Sacuudiga banki ay hore u leeshay heshiiska sameysay waa cadaawad halka gaarsiisan tusaale bank kaskii cadaawada farmaajo ku kacay hadaad dhageysateen clip YouTube ku jira wiil yar oo dhalinyaro ah oo burca ka hadlaya buu jooga markuu hadlay wiilkaas wuxuu reer faqir ah ka dhashay kooras baa laga diray markii aan sanad joogay waa kooras reer lacag kala maatay qaahira jaamacadda ku jiray waxaan application u qortay safaaradda Muqdisho deetana wuxuu yiri waracaynkaas aan ahay koorsada waa tan la qaybinayo dadka la siinayo qaar aan Soomaali ahayn asiraysan hal lagu qoro kooraska marka labadii nin ay joogay way isweydiiyeen ninkii carabka ahaa ee qaybinayo u keenay waa hal si waxa ma Soomaali ma way u diideen muddo u sheegay dheer ana garanay inuu ku noqonayo bariyayo inuu hawo cid walba waa sida Soomaali ba ku hadlay hal isiyo wala diid u taariikh 13 mar sheekadiisu ku shaqeynay waa ka wax magaca Soomaalida ugu wada bixiya arday mustaqbal Soomaalida baranaya loo diiday shalayna mid isaga u shaqeeya wuxuu lahaa arday badan ma kooras iyo baran aan meel geeya malaha waa qolada wax tabaraysa barida isaga koorsisi marka waxaan leeyahay qodobka hore waa ka Soomaaliland cadaawad ba ka dhaxaysa Soomaaliland ninka soo weeraray cadada wax kama tabatan mana barida way iska celisay waana iska kaacinay qodobka labaad wuxuu yiri waa in la hirgeliyo guddiga ay hirgelisay mabaadi'da federaalka tii federaal shaqo ku bari waynagii kala baxay 60 weyn midoweynaha inoo frontiera waynaga dunta 19 wixii aan wada dhisanay dadkeen badan gaar u soo taagay adigu federal ba tahay dastuurkaaga aad leedahay cidii ku dooratay weey Soomaalilandna waa republic waa jamhuuriyadda Soomaaliland dastuurkeeda leedahay madaxda ay dooratay hawsheeda wata marka hadii dawladaha caalamka ay ku ictiraafeen Soomaaliland inta uu ictiraafana anaga jirtaa adeeg kuma khusayso labada qodob markii ay waxa kala deel qaafa oo yara aqliga aan galin gudi u magacaabo wuxuu Soomaaliland baa doonay in la wada soo shiino rag Soomaaliland u dhashay uu soo magacaabay oo isaga la jooga taasi waxa weeye Soomaaliland ana ila joogta
hubaalo waxa weeye waa run dadka kula jooga waa dad Soomaaliland u dhashay laakiin adiga ku yimid ee aan wadi qadadii Soomaaliland iyo go'aankii Soomaaliland mana dhici karto mana suurtoobaysa inay Soomaaliland u hadasho dad farmaajo u shaqeeya Soomaaliland waxa u hadli doona dadkeeda haya xilkooda iyo codkeeda ee ummadani dooratay ama u imatay ama ay u dooran doonto inay u hadlaan arrimahaasi mana suurtoobi doonto haddii wada hadalba yimaado oo cidlo ka heshiiso malaha intaa joogto cid ka heshiimaysay dad Soomaaliland ka mid yihiin inay ka yimaadaan dhinaca ay Soomaaliland wax ka doonayaan ay haystaan saddexda qodob intaas kaga tagay qodob kale ayaan dirayaa xisbiyada mucaaradka saaxiibayaal waqtigii doorashada bisha August 10keeda haddii naga gaadho sharcigu wuxuu dhigayaa in loo gudbiyo guud caawana waxa joognaa 20 July waxaan rabaa 20 waxaan ku murminaa waa laba la kordhiyaa la kordhin horta waxa muhiim ah laba lagu daro guddiga doorashada mise inuu doorashada loo dhacdo weydiinaya waa saaxiibaday waxaan leeyahay laba la kordhiyo oo imka sharci ah la bilaabo macquul ma aha sharcigu sidii ay ku galaan maanta labada markay dhamayna baarlamaanka oo horeysa ay kororsan laakiin 20 cisho sharci hal la furo oo hal laga doodo maxaa loo kordhiyaa maxaa laga dooday maxaa dhacay oo baarlamaan hal loo geeyo oo cod la geeyo taa walaalayaal doorashada waa inaga dhaxumaanay gaari mayno 20 cisho aynu haray labada xisbi waxaan soo jeedinayaa dalku doorasho u baahan yahay doorashadii labada xubnood ee doonaysaan maalinta doorashada ka baxay ajendeena horeeya ha noqdo maanta haddaynu hawshaa galla ka bixinayna waxaan soo jeedinayaa inaynu doorashadii gallo oo aynu ka midoona waxaan mafdhicil baa mise maaha hadalkiisa aad iyo aad loo mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu